hay-adda Save the Children ayaa waxaa garoonkani casriga ah oo nooca loogu talagalay dhalinyarada oo roog casriyana la dhigay ay ka hirgelisay xaafadda Digaale ee dhanka koonfureed kaga dhagan madaarka magaalada Hargeysa. garoonkani kubadda cagta ee xaafaddaasi Digaale laga hirgeliyay ayaa lacagta lagu dhisay waxa bixisay kooxda Arsenal oo ka mid ah kooxaha ugu magacaabay naadiyada qaaradda Yurub. dhaqaalahaas oo ay soo marisay hay-adda Save the Children oo u bandhigtay baahida kubadeed ee caruurta xaafadda Digaale ee magaalada Hargeysa. Mukhtaar Maxamed madaxa hay-adda Save the Children ee Somaliland ayaa ka hadlay mashaariicda xaafaddaasi ay ka fuliyeen inaynu xadhiga ka sharno oo aynu furno garoonkan quruxda badan ee loo dhisay caruurta iyo dhalinyarada xaafadda Digaale. hay-adda Save the Children waxay in muddo ka shaqeynaysay xaafadda Digaale. waxaanu ka qabanay mashaariic door ah oo u badan adeega bulshada. waxaa jiray qoysas danyar ah oo aan lacag siin jirnay muddo ah. waxaa jiray caruur aan tababarnay. markii aanu aragnay baahida ka jirta xaafadan iyo sida dhalinyarada degan iyo caruurta xaafadan aanay haysan goob ay ku ciyaaraan ayaanu raadinay lacag loogu dhiso xarun ay ku ciyaaraan. nasiib wanaag naadiga la yiraahdo Arsenal ee ka dhisan dalka Ingiriiska qayb uu leeyahay oo loogu talagalay samafalka ayaa waxay noogu deeqeen lacag lagu dhiso garoonkan quruxda badan. waxaan halkan uga mahadnaqayaa naadiga Arsenal oo isagu bixiyay deeqda aynu ku dhisnay garoonkan. waxa kaloo maanta iyaduna noo raaci doonta halkan aynu joognaa inaynu dhagax dhigno qayb labaad oo ah qayb loo dhisi doono dhalinyarada oo hall weyn oo la dhigi doono ciyaaraha gudaha lagu ciyaaro la yiraahdo indoor games oo isna aanu fulin doono oo halkan ugu xigtaan aan ka dhisi doono. wasiirka ciyaaraha Somaliland Cabdirasaaq Waabari Rooble iyo ku-xigeenkiisa Cabdirashiid Ismaaciil Cabdi ayaa ka qayb galay furitaanka garoonkaasi. aad ballaaran baan u celinaynaa hay-adda Save the Children oo iyadu fikirka leh u fikirtay maadaama xaafadan ay ka shaqeynaysay maxaa ka maqan xaafadda eed u baadi doontaan. waxaan leeyahay ilaahay ha idinka abaalmariyo. meel wanaagsan baad dhigteen fikirkiina. kooxdan Arsenal ee Ingiriiska idinka aqbashay inay soo maalgelisana waan u mahadnaqaynaa. waxa farxad noo ah wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha inaanu ka soo qayb galno furitaanka garoonkan. meelo badan oo waxa jira meel aan u baahnaynba intaas oo garoon la isku dhadhaweeyo kan ise wuxuu ku dhacay right position buu ku dhacay oo meeshii loogu tala galay ayuu ku dhacay baanu leenahay oo dhalintani aad bay ugu baahnaayeen. mas'uuliyiinta hay-adda Save the Children ee Somaliland ayaa sidoo kale waxay dhagax dhigeen dhismo kale oo loogu talagalay ciyaaro kale oo fudud oo xaafaddaasi laga dhisi doono. da'yarta iyo odayaasha xaafadda Digaale ee magaalada Hargeysa ayaa bogaadiyay mas'uuliyiinta hay-adda Save the Children ee kaashaday kooxda Arsenal ee waddanka Ingiriiska isla markaasina hirgeliyay garoonkaasi. waxaan u mahadnaqaynaa hay-adda fulisay Save the Children iyo ciddii soo qaadanka soo bixisay lagu dhisay waan u mahadnaqaynaa. halkan waxaan ka salaamayaa hay-adda Save the Children ayaan u mahadnaqayaa. waxaan kalaan u mahadnaqayaa Arsenal Foundation oo garoonkan naga caawiyay.